bulshada ku dhaqan degmada Waajid iyo tuulooyinka hoos yimaada waa kuwo u nugul dhibaatooyinka dhanka caafimaadka ah xilli degmada Waajid ee gobolka Bakool aan wali laga hirgelin cisbitaal guud iyo mid gaar loo leeyahay degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa gabi ahaanba xarumo caafimaad waxaa ka jira MCJ yaryar waxaana MCJdaasi qaar xilligan ay yihiin kuwo albaabada la isugu dhuftay iyadoona bulshada iyo dhaqaatiirta ku nool degmada ay walaac xoogan ka muujinayaan MCJdan la xiray Abdul Qaadir Maxamed oo kamid ah dhaqaatiirta ka howlgasha degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegay in baahida caafimaad ee xilligan ka jirta degmada ay keentay in dadka qaar ay u dhintaan gargaar la'aan dhanka caafimaadka waxa uuna maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ku eedeeyay inay indhaha ka qabsatay dhibaatooyinka caafimaad ee xilligan ka jira degmada Waajida waliba faday inta ku jeediye yani dhibaatooyinka degmada ka jira oo kamid ah caafimaad dara taasoo in degmadii iyo eedanka liidata dhanka caafimaadka bilooyinka horsidii degmada hayteen hayna degmada caafimaad daradii horanka zaa'idahayta taasoo haytay degmada to ku tiirsan MCJ degmada si loogi baaxadii dad badan oo intaasoo kun qof oo ilaa 10 qof ku nool oo MCJ-na baahidii aan kaafi korna degmadiina aan qabna isbitaal guud taasoo dhibaatooyinka ee bulshada deegaanka ku nool oona degmadan degmo go'doonsan oo yani dadkeena aan helo korna caafimaad milyan ka bahan ama diyaaradaha toy ama yani hatoy waliba meel faday inta ku eramay la raayusa dadka deegaanka ku nool way dad eedan ka baahan in goobo caafimaad lan suubi oo goobo horumarin oo bulshada yani caafimaadso hadii habar umul geek meel jiyo male hadii qofka dhaawac weyn deer geek meel isbitaal la qaado male bulshada magaalada way banatay to eedan ka leedita dhanka caafimaadka iyadoo jaran hay'ado yar oo wal gacan ku jeesdo oo yani caafimaadkaas deegaanka wal ku qabdo jari birshoni yani gaabha gali oo yani caafimaadkii meel ku bahi bulshadina geek iyo dala dhacay caafimaad dara deegaanka jirta waliba anta macnaha dhaliilgaar aan ka jeediyay maamulka koonfur galbeed inkuwiina dawladda Shariif Xasan Sheekh Aadan wasiirka caafimaadka oo laan deegaanku ha ku jeeda geek oo yani usuuna حتى بوقش إسكاف إن مجوب عافمات أو جيك لك تمني كورسونا إن بتشي إن كفولين ديجانك تاسو عقبت من كي لانكبنا لانكن حلكها ولا لندور ده ولا ما تري ديجان إني وسون نون تلا لبعض ديجان شكجرت إني مرول بس معناها إن هكو كومر أو كهرمر إن يعني كورها ديجان لبعض شكجرت. دكتور عبد القادر أو هالكيس سي وطا أي دولة الحياة الصومالية مامل كونفور قلبات يهيدها سمفلك وباقي إن أي سيد دك وجود جوابان باهدا عاقبات حلقا كتاجن دقمة واجدة. إلا بالنباهية إن مامل كونفور قلبات يو جارهان دولة لح ربك إن كدير جليانة إني يبلشيد ولا نقودان وزارة والبنك موقت ديجان كيروكت ديجانكم باهي بدنا لنقاب عافمات MCJ مقالة باهي الدول كرت معه ويبقى لباهي إبستالوين إنتي مقالة لدس الهرجلي دكتور آدن هرش علي أو مدى حرونتا جريدو دegmada Waajid ayaa sheegay in cisbitaal la'aanta ka jirta degmada Waajid ay keentay in dad fara badani ay u dhintaan gargaar la'aan dhanka caafimaadka waxa uu ku baaqay in degmada laga hirgeliyo cisbitaal degmadan si isin la socotaan baaha badan ku jirta baahdaas oo kumada dhinaca caafimaadka hije oo degmadii oo dhinaca caafimaadka idan ku liidata maadaama hordaan MCJ badan ku jiraan MCJdiina walaa yar gaab ee garan hay'ado iyo dawladda oo koonfur galbeed wali baan ka baaga fadnay intii oo mana xarun caafimaad oo isbitaal weyn degmadii lagu hirgeliyay degmada iskabta oo isbitaal aan lahayn oo maalin walba dad oo isku dhiig bahow bilaamay oo dhiig bahaas la argayo meel oo emergency aad lagu geysay on lahayn sida dhaawacyada ciidanka oo dhaawac ay wal saasay hadeeraan oo yona hata meel emergency ah hata aan helo online magaaladiina go'doon isku hata wasaaradda caafimaadka wali baan ka baaganahay hanti oo si emergency isbitaal hoobiya helo korto dawlado la kaalata iheedo oo samafalka isbitaal magaalada lagu hirgeli baaqan ay jeedinayaan dhaqaatiirta caafimaadka ee ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bakool oo ku aadan in degmada laga hirgeliyo cisbitaal guudka oo daboola baahiyaha caafimaad ay qabaan dadka ku nool degmada ayaa imaanaya xilli degmada Waajid ee gobolka Bakool in ka badan 4 sano ay u go'doonsan tahay dagaalamayaasha al-shabaab aysan jirin wado u furan waxaana magaalada ka hirgashan MCJ yar kuwaasi oo aan dabooli karin baahida caafimaad ee ka jirta degmada.